qaraxa goordhaweed ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa waxa ku geeriyooday mid kamid ah xildhibaanada baarlamaanka ee dalka Soomaaliya. Xildhibaan Maxamed Warsame Maxamed oo loo yaqaan Faysal oo kamid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa ku dhintay qarax goordhaweed ka dhacay magaalada Muqdisho. Dhimashada xildhibaanka ayaa timid kadib markii waxyaabaha qaraxa loogu xiray gaari oo watay, waxaana qaraxa gaarigiisa la maqlay goor kadib markii uu ka baxay guri ku yaala magaalada Muqdisho. maahan markii ugu horeysay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya qarax lala eegto Muqdisho iyadoo lagu dilay qarax xildhibaan Garweyne oo kamid ah xildhibaanadii hore ee baarlamaanka kumeel gaarka ah ee Soomaaliya. sidoo kalena dhowr bilood ka hor qarax lagula eegtay degmada Xamrweyne xildhibaan Sheekh Aadan Madeen. sidoo kale dhawaan ayay ahayd markii kooxo hubeysan ay xaafada Buuluxube ee degmada Wadajir ku toogteen xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya xilli uu socday gurigiisa oo ku yaala xaafadaasi. lama oga ilaa iyo hadda cidii ka dambeysay dilkiisa mana jiraan wax warar oo cadeynaya ama ka soo baxay ama qola sheegatay